السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome another wonderful 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 video which is about maanta barnaamij cusub baan noo wada barnaamijkaas oo ah magaciisa waxaa la dhahaa 7 dhacdo oo dhacay toddobaadkan. Macnaha 7 wax oo caalamka meel walba ay ahaadaanba ka dhacay toddobaadkaas yaan soo gudbinayna. Waxaan soo gudbin doonaa toddobaadkii hal mar waliba ama maalinta ugu dambaysa ama maalinta ugu horeysa sabtida ama jimcaha. barnaamijkaas ayaan rabnaa toddobaadkan hadda la soo dhaafay maanta isniin weeye muuqaalkan berri talaadin soo gaadhay maanta isniin weeye toddobaadkii hore 7 dhacdo oo dhacday ayaan rabnaa inaan maanta la wadaago. waxaan leeyahay soo dhawaada dhammaantii soo dhawaada aad soo dhawaada yaa soo dhawaada meeshiin weyn ismarteena mideen ugu horeysa waxay tahay niman iyo haween u dhashay dalka Mexico ayaa waxay arooseen geedo iyagoo sheegay sababtii u arooseen. horta waxay sheegeen in aad u faraxsan yihiin arooseen geedo. midda kale kaliftayna waxay tahay inay arkeen geedihii oo la dabar gooyay sida darteed geedkaas ama ninku guursaday ama naagtu guursatay qofkii taabta in maxkamad la tiigsan doono oo ay u dhiganto in ninkeedii ama xaaskiisii la taabtay. ajaa'ib shaqo adduunka wax walba laga arkay. dhacdada labaad waxay tahay insan wada ognahay dhimashada boqorada Ingiriiska Elizabeth FIFA World Cup ayaa wuxuu noqon doonaa midkii ugu horeeyay ee la ciyaari doono sanadkan Elizabeth la'aan. ay dhalatay 1926 isagana waxaa la bilaabay 1930 macnaha iyadoo 4 sano jirta ayaa World Cup la bilaabay. sidaa darteed wuxuu noqon doonaa World Cup ugu horeeyay taariikhda noqon doona Elizabeth la'aan. dhacdo kale oo isla World Cup ku saabsan World Cup kan Qatar lagu qabanayo wuxuu noqon doonaa World Cup ugu horeeyay ee isagoo dal muslim lagu qabanayo haddana loo ogolaaday inay ka soo qayb galaan laga roonayaashiis dadkii inkaaraha qabay bacsanaa inay ka soo qayb galaan ayaa loo ogolaaday. kale sida la sheegay ciidamada booliska Edmonton ee wadanka Canada ayaa gabadhan iyo ninkeeda carruurta ka qaatay sabab la xiriira in lagu dacweeyay inay carruurtooda hortooda kaga sheekeeyaan waxyaabo aan loo ogolayn. sida darteed kulli dadkan waa la wada arkay dadka Soomaalidu way yaqaanaan wax bilaa macniyo dhaqan xumo ay saa uga sheekeeyaan. sida darteed waxyaabo mamnuuca xataa gaaladu aysan ogolayn iyo carruurtooda uga sheekeynayaan. sida darteed carruurtii waa laga qaatay. midda kale aad in looga xumaado tahay waxay tahay carruurtaas la qaatay looma geynin Soomaali muslimiin looma geynin noloshooda wax ay hooyo Soomaaliya aba Soomaali ka helaayeen kama helayaan gaala qaadatay. carruurtaas runtii aad u nasiib dareeyeen waalidkoodina saanay noqdeen gaaladii loo geeyina si ula dhaqmayaan kulli wax aad loo xumaado. ninkan aad sawirkiisa aragtaan ayaa waxa dhaxal ahaan loo siiyay $5 milyan. 3 milyan oo kamid ah wuxuu siiyay gabadha ay wada socdeen halka 2 milyan ee soo hadhayna uu siiyay oo ku kharash gareeyay familkeeda iyo arooskeeda. ninkan waa daacadnimadii oo qof ah. adiyaad hilaa lacagtaas ama sameyn lahayd 3 milyan ma siin lahayd qoftaada 2 milyan ma ku guursan lahayd hadduu ganacsi bilaabi lahaa milyaneer buu ninkaas noqon lahaa wallah. maskaxda la isku dhaafay maskaxda. ninkan kulli waa loo garanayaa fanaankii codka xumaa ee Bangladesh-ka ahaa. hadda waxaa la sheegay in la soo daayay sababta loo soo daayayna ay tahay inuu ogolaaday inuu daayo heesihii uu qaadayay. fanaankan waxaa lagu haystay markii hore waa cod xunta iyo waa fool xunta labadaas. sidaa darteed muddo bila oo xirnaa kadib hadda waa la soo daayay waxaana lagu heshiiyay inuu heestan baqaaday. adduunku way ka dhacdaa in qof loo xiro waad cod xun tahay iyo waad fool xun tahay. laakiin Soomaalida ma ka dhici kartaa taa. Soomaalida hadday ka dhici lahayd dad badan kulli waa la xasuuq lahaa yaa kamid ah. taas ka cabsanaya cadan waa dhacdo aad u la yaab badan oo ka dhacay dalka Mareykanka. gabadhan ayaa suuqyada dalka Mareykanka waxay ku wareegtinaysaa ninkaas oo ay sidii ay intii qoorta ka xidhay ay wado isaguna guurguuranaya. gabadhan waa la qabtay waxaa kadib markii la weydiiyay maxaad ninkaas u galaysaa waxay tiri ninkan aniga keenay dalka Mareykanka sida darteed waa aygeygii oo guriga ku caagsay kadib aan cagaha u soo furfurayo magaalada soo barayo. isagii ayaa la weydiiyay isagina wuxuu yidhi haa aygeydii ayaan ahay. sida darteed in gabadhan iska sii daayo ayaa la go'aansaday. ajaa'ib sheeko nin raga ayadoo naaga qorta ay ahaan u wadataa. caalamkan adduunka gadoon lagu jiro waxaas ku filan. dhacdadeena lixaad Afrika horta dhacdooyinka ka dhaca aad baa lagu qoslaa inta badan waxyaabo faniya ka dhaca
ninkan oo u dhashay dalka Uganda yaa waxaa lagu leeyahay waxaa lacag ka cunay 3 jiir ayaa lacag soo shaqeystay bay ka cunay 3 jiir intuu soo qabtay uu saldhigga booliska geeyay 3 jiir oo lacag ka cunay soo qabtay uu saldhigga booliska geeyay kadib wuxuu ku dooday uu aad uga calaalay in jiirka nafta u keenin ciqaabtooda la marsiiyo sharciga la marsiiyo walaal qaali jiir weeyabe ma dishidba guriga maxaa wad uga soo deynaysaa dadka qaaliga halkan markuu dadka qaar kaga jiro dadka qaar waxa sidii aqligu lagu kaga jiraan lugaha ayuu dadka qaar aqliga kaga jiraan dhacdada ugu dambaysa ee ugu qosolka badan ayaa tan ah waxay ka dhacday kulli wax walba Feniya Afrika inta badan ayuu ka dhacay dhacdadan waxay ka dhacday dalka Afrika maanta sida gaalada waa qaaradda Afrika ayay ka dhacday sida darteed dhacdadu waxay tahay laba nin waxa lagu leeyahay diyaarad ka timaaday wadamada Afrika wadanka Kanada u socotay dalka Kanada ayaa laga dhaxlay laba nin oo boorso ku jira kadib markii ay wax uriyaa oo soo qabtay la sheegay inay meesha ku jiraan markii la weydiiyay ay rabeen inay si qarsoodi ku tagaan dalka Kanada dhacdadan horta si marka loo eego waa Feni waa ku qoslaysaa xaqiiq miya kaftan miya kulli run inay taan maleynaa sababtoo ah sawiradan meesha wax beer uma eka soo wax walba oo xaraaba ama alla yaabisid Afrika oo ku arkaysaa aad waxyaabo loogu qoslo oo lagu arkaa marka muuqaalkan intaas ku soo gabagabeynayaa 7 dhacdo toddobaadkaas dhacay waxay noo ahaan doontaa dhacdo joogta oo toddobaadkii hal mar soo gudbino 7 dhacdo toddobaadkaas dhacay ayaa miiska dhaca soo kan kiiya muuqaalka ku kulmayno bye bye